gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciya ayaa waxa uu maanta uu kulan ballaaran isugu yeedhay dhammaan maamulayaasha iyo macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga dugsiyada magaalada Boorama. kulankan ayaa ahaa mid saacado badan qaatay isla markaana ka qabsamay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal ay ku leedahay magaalada Boorama. kulankan ayaa intii uu socday waxa si qoto dheer looga wada xaajooday qorshaha iyo qaabka loo wada shaqeynayo sanad dugsiyeedka cusub ee hadda bilowga iyo sidii tayada waxbarashada ardayda gobolka Awdal sanadkan kor loogu qaadi lahaa. markii kulankaasi uu soo idlaaday wax warfideenada la hadlaysa markaana faahfaahin dheeriya ka bixiyay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciya. waxaanu halkan ku kulannay dhammaan macallimiinta dugsiyada hoose dhexe ee dawliga oo dhammaantood kulankaygana wuxuu daarnaa maadaama sanad dugsiyeedkii cusbaa 2019-2020 la galayo inaan bal isweydiino sanad dugsiyeedkii hore 2018-2019 wixii noo qabsamay waxa dhiman annagu ujeedada koowaad ama aan gundi ka dhigaynay imtixaankii guud ee national examska dhammaan ardayda imtixaanka markaa u fadhiisatay inaan marka koowaad ku hambalyeeno macallimiinta sida wanaagsan markaa u soo shaqaysay iyo iskuuladii sida wanaagsan markaa uga howlgalay iyo inaan isweydiino ardayda gaari weyday levelkii ama halkii loogu talagalay gudubka ama inay ka gudbaan oo sanadkan aad moodaysa inay ka badan tahay sanadadii hore. waxaan isweydiino maxaa u sababa inay ardayda intaa leeki hoos u dhac ku yimaado. taasaanu dhammaan macallimiinta iska wareysanay waxaanu istusnay cid kasta ay dhaliisha ay leedahay. ugu dambeyntii waxaanu kala war qaadanay ama awaamiir ah iyo qorshe ay wasaaraddu sanadkan rabto ah sidii dib loogu soo celin lahaa tayadii waxbarashada gobolka Awdal lahaa. qorshahaasi oo sanadkan ka duwanaanaya sidii hore maadaama sanadkan arkayna in tiradii hore ka hooseysa gaar ahaan dugsiyada dawladda. waxaan sanadkan qorsheynay inay macallimiintu sidii awal waxay u dhigeen wax badan ka bedilno aanan ka saarno dhammaan maadooyinka macallimiintooda lagu liitay aanan ku bedilno macallimiin cusub oo markaa aanu qiimeynay oo hawshaasi markaa ka bixi karta. waxa kale oo halkaan nidhi dhammaan dugsiyada dawladdu inay sameeyaan xiriir joogto ah oo ah xiriirka waalidka. waxa inta badan lagu soo celceliyaa ardayda wax baranaysa liidata waa inaynu tusnaa ardaydaasi waalidiintooda oo dugsi kastoo dawladda ka mid uu si toos ah ula xiriiro ardayga hadduu muddo 10 cisho wax ka badan iskuulka maqnaado si aan uga joojino imtixaamaadka shahaadiga ama iskuulka baynu markaa wax in arday ka sii ahaado. sababtoo ah haddii ardaygu markuu iskuulkii iman waayo la daayo hadda waxa dhacaysa in tirada ardayda inta leeg markaa imtixaanka ay dhacaan. waxa kale oo tusnay dhammaan macallimiintu waa macallimiinta tababaran laakiin waxa noo soo baxday in macallimiintu hawshii loogu talagalay sida uu qabsameen inuu kormeer joogto la xisaabtan dhaba in dhamaanteed markaa sameeyno. sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeke Cismaan Ciya ayaa waxa uu fariin u diray waalidiinta dhalay ardayda kala duwan ee gobolka Awdal iyo jaamacadaha magaalada Boorama iyo cid kasta oo danaysa waxbarashada gobolka Awdal inay markaa ilaaliyaan nidaamka markaa waxbarashaduna waxay ku xidhan tahay gobolka waalid iyo jaamacadaha dugsiyada sare iyo kuwa dhaxba haddaan isku duubnaano si toos ah wada shaqeyno dhici mayso in gobolka markaa waxbarashadiisu liidato. laakiin waxaad moodaysaa inay waalidiintu kaba warqabin ubadka wax baranaya. waalidiintu waxaan leeyahay kaalintiina baa laga baahan yahay. jaamacadaha waxaan leeyahay in iyaguna kaalintoodii markaasi ay qaybtooda qaataan iyo dhammaan cid kasta markaa waxbarashada inay ka shaqeysay. وعمران حسين آدن ورركا مقبايا تلفزيون كعالمي Star TV Boorama.